salaan diiran dhegayste ku soo dhowow rawaayadeenna taxanaha ahayd ee xiisaha leh ee sahanka nolosha waxaan kuu haynaa xalqad cajiib ah maanta balse intaannu u guda gelin aan soo koobna waxyaabihii dhacay inta lagu guda jiray xalqadii la soo dhaafay teleefoon kale ayay soo direen makafayaashii lacagta madax furashada ah rabay shiiqu mar kale ayuu dhacay talow xaaladdiisa caafimaad ma ka soo royn doontaa cebla waxay xaawakiin ku dhibtay inay lacag ka soo qaaddo mooge talow mooge ma u tegi doontaa oo ma ku laaban doontaa joofle waxaa haysta mudanaha burcadbadeedda oo wuxuu ku haystaa qoriga maxaa dhici doona xalqadani soo socota kala soco halkan sahanka nolosha maxaad iga soo fiirinaysaa joofle cunto kama cunaysid gurigan ilaa aad meesha aad jirtay aad sheegtid naanaag yahay cuntada isii waa gaajaysanahay sheeg meeshii aad jirtay 3 maalmood ee la soo dhaafay joofle cuntada isii warka iska daayo waxaan ku siinayaa markii aad sheegtid meeshii aad jirtay waryaa waan arkaa waxa aad doonaysid waxaad rabtaa inaan cuntada kugu qabsado oo aan isdagaalno kadibna aad golaha odayaasha iga dacwoodid sida ay saaxiibta xaawakiin u gashay mooge oo kale tan iyo taas shaqo iskuma laha xaawakiin ayaa tusaale u noqotay reer daaqsan soo ma aha haddii raggu ay sameeyaan wax qaldan waxaa la geyn doonaa golaha odayaasha sax hadda aniga ayaad fakir fiican i siisay joofle marka haddii aad ii sheegi weysid waxaan ku geynayaa golaha odayaasha si ninkaygu ugu sharaxo xaaskiisa iyo odayaasha meesha uu jiray 3 maalmood oo dhan yaqyaqsi baad sheegaysaa iyo wax laga xishoodo idhagaysa joofle intaan odayaasha u tago oo aan beenbeen is-ooysiiya aniga ayaan u sheegayaa dhibaatada iyo walwalkii aad gelisay iyo sidaan meel kasta kaaga raadiyey sida carruurtaada iyo reerkaaga oo baahan aad uga tagtay waryaa miyay kula tahay in aysan ii garaabaynin odayaasha horta cuntadaa ma isiin kartaa kadib ayaan ku laabanaynaa dooddeenna cidda ku guulaysan doonta kiiska golaha odayaasha waxaan ballankaaga qaadayaa haddii aadan ii sheegin meesha aad jirtay inaad adiga laftirkaaga cunnada karsan doontid oo dabka shidan doontid ii sheeg waryaa runta hooyo waxaan rabay inaan kula hadlo kahor inta aanan bixin cali iga jooji hadalka tirada badan leh haddii aad rabtid inaad igala hadlishid inuu aabbahaa kuu oggolaado inaad guursatid gabadha reerka ka soo jeeda lahayb sooco middaa iska ilow waan ku baryayaa aabba igala hadal hooyo adigu unbaa igala hadli kara fadlan la fadhiiso hooyo aabbo si uu iigu oggolaado inaan gabadhaas guursado hooyo waan jecelahay gabadhaasi haddii aad adiga igu caawin weysana inaan heli doonin ay u badan taha hooyo marka aabba ka dhaadhici waxaan hubaa hooyo inuu ku oggolaan doono haddii aad la fadhiisatid waa gabar fiican gabadha aan kuu sheega hooyo cali aabbahaa go'aankiisa ma beddeli doono madaxa iga cunin runtii ma fahmaya sababta ay arrintan idinkuga adag tahay adiga aabbe goormee ayuu dhaqanka galay booskii diinta maxaa qaldan cali iskuulkii aad hormuudka ka ahayd iyo diyaaraduuliyihii aad noqotay kama macno aha inaad ka aqli badan tahay odayaashii dhigi xeerka middaas hayloobin inaan wax fahmo un baan u baahanahay hooyo horta ma isku dayaysaa inaad wax fahamtid mise jacayl baa ku indha tiray oo aniga iyo aabbaha waxaan kuu sheegin intay kaa marayaan waa gabar fiican oo dhowrsan hooyo gabadha aan kuu sheegayo annagu middaas dhib kuma qabno ee waxaana dhibaya waa inay ka soo jeedo reer laheeb socdo nin ragaa ilaahay kaa dhigee gabar kale soo dadaya mise annagaa kuu soo dadayno hooyadii maxay ii fahmi la'dahay hooyo aniga qalbigayga iyada keliya ayuu jiraa maryan keliya ayaan jecelahay qof kale uma baahni hooyo waryaa ma ii maqashaa nin rag ayaa tahay qalbigaaga meel kasta ayuu raaci karaa annaga waxa keliya aan rabnaa waxaa ah inaad gabadhaas qalbigaaga ka saartid oo mid kale aad raadsatid oo qalbigaaga degta hooyo dhaqankeenna waa soo jireen mana diidani laakiin markaan keliya mala beddeli kara miyaa hooyo yaa waryaa ma habaar baad rabtaa dhaqanka hala beddela ma jeceel ayaa ku waalay mar dambe ma rabo inay erayadaas dibnahaaga soo dhaafaan waa maryam hooyo waxay soo wacaya ilaa ay hadda ma aqaan waxaan u sheego jawaab ayay iga sugaysay weliba jawaab wanaagsan laakiin hadda sidaan idinka arkaya adigii aabbe waxaad u mooddaa in jawaab ku habboon aan siin lahaa maryan aanay ahayn yaa oo weli umaadan sheegin miyaa inuu aabbahaa diiday sideen ugu sheegaa waan jecelahay suurtagalna ma ahan hadal aan dhagaheeda u fiicnayn inaan u sheego hooyo gabadhaas miskiinta ah rajo been ayaad ku abuuraysaa oo wakhti ayaad ka dhuminaysaa miyaa cali
waxaan aaminsanaha hooyo inaan isheli doono gabadhaasi aniga. fadlan gabadhaa ceebta ka ilaali oo yaysan arrintaa dadka xaafadda maqlin. wax aroos ah ma dhici doono. inaad xili hore u sheegtid ayaa kuu fiican. waan sii baxayaa hooyo. waxaan filayaa inaad runta u sheegi doontid sida ay arrimuhu u socdaan nabaday. alle ayaa mahad iska leh. aabba wuxuu u muuqdaa inuu soo raystay. ilaa intee ayuu sidaas sii ahaan karaa? yaa og waxa dhici doona haddii teleefoon kale soo dhaco. alla ilaahayow rabbiyow noo naxariisa yaa allah. kalkaalisa maryam, xaaladda caafimaad ee aabba ka waran. sideetiin xaawakiin imaama ceebla shiiqu wuu fiican yahay. dhakhtarku wuxuu dhahay xaaladdiisu way deggan tahay hadda. alxamdulilaah. dhakhtarku digniin ayuu isoo faray. wuxuu dhahay lama rabo inuu shiiqu aad u farxo in muddo ah. aad u farxa ah? maxaad ka waddaa? lama rabo in loo sheego war dhiiggiisa aad u kicinaya. ha u oggolaanina inuu la hadlo magafe mar dambe. hayo insha allah, aniga laftayda ayaa la hadli doona magafe hadduu soo waco mar kale. waxaa kuu fiican xaawakiin inaad lacagta noo keento si aad nooga saarta dhibaatadan. waayahay, waxaan soo fiirinayaa bukaannada waadhka kale ku jira. waa inoo iyo hadhow. waayahay, waa sii baxayaa. kalkaalisa maryan, sidee xaaladda aabba tahay? waad ii sheegi kartaa. hooyo hadda ilama joogtee. wax yar oo farxad ah ayaa u darnaan karta. wadnihiisu waa daciif. waan ka xumahay xaaladda aabbe xaawakiin. aniguba sidoo kale. dabcan magafe wicitaan joojin maayo ilaa ay ka helaan lacagta. alla maxay nolosha u adag tahay. mararka qaar annaga ayaa isku adkayna nolosha. lama rabin inuu daahir tahriibo. bal hadda fiiri natiijada safarkiisa. qof kasta dhib ku filan ayaa haysta qaladka xun ee uu geystay awgiis. waan ogahay. maxay hooyadaa kugu haysatay? waxay rabtaa inaan mooga ku laabto si uu noo siiyo lacagta madax furashada loogu haysto daahir. adiguna maxaa rabtaa? maxayse kula tahay haddeer? ma aqaanno. xaaladda aabbe aad ayay u xun tahay. ma fiicna xaaladdiisu. haddii wax yar oo kurba uu dareemo wadna xanuun aad u daran ayaa ku dhici doona. waan ka xumahay xaaladda aabbe xaawakiin. waad ku mahadsan tahay maryam, sida daacadda ah ee aad wax iigu sheegtay. meel ayaan u socdaa ee nabaday. waayahay abbaayo, hadhow waan wada hadlaynaa. cuntadii si fiican ayay iigu degtay. bal biyo aan ka dabageeyo si fiican haddana ay iigu sii degto. qof adiga ku qabaa cadowba uma baahnaba. joofle, mar ay ahaataba waxaa soo bixi doonta runta. qofka aad wax ka qarinaysid waa xaaskaagii aamino oo aan waxba ka qarsoomi karin. haddii aan runta bannaanka ka soo maqlo jooflow, waxaan ballan iyo axdi ku marayaa inaan mar dambe cunto kuu karin doonin. may maqlaysaa? naadhagaha ayaad iiga qaylinaysaa. waan baxayaa si aan runta u soo ogaado joofle. waan hubaa inaan runta la soo galban doono. may maqlaysaa? waaya ha bixin sug anaa kuu sheegaya. haye, maxaad la aamusan tahay? waan ku maqlaa. soo daa warka. waxaan raacay doon. alla, maxaad samaysay? iigu celi joofle. ma hadlaa bis adiga ayaan sheekada kuu daaya oo hadlaya. haye, hadal ii sheeg bal. doon ah? waxaan raacay doon si aan u tijaabiyo nasiibkayga. bal dhegaysta ninkan waalan ee i qabo. joofle, ma waxaad mar labaad isku dayday burcadbadeednimo? horta adiga yaa ku falay oo ku sixray yaa? allah, aniga ayaa dhegaysan waayey. mar horeyna reerkayga igala kaa taliyeen adiga inaad nin waalan tahay. saxanka nolosha. xaawakiin waan ka xumahay. warbixin kuma soo siin. waa caadi hadda waan imida ii sheeg. sidee yahay sheekh rooble? xaaladdiisu way deggan tahay. aad ayuu u soo kabanayaa. allaha caafiyo. mar kasta waan u duceeyaa. mahadsanid hibo. ma kuu suurto gashay in aad heshid qaraabadii qurbaha jirta ee aan daynta ka rabnay? waan la hadlay. qof lacag hayana kuma jiro. xataa ma jiro qof wax yar awooda miyaa? 5,000 ayaan ururinnay. waxaana noo dhiman 15,000 oo dollar. ma hayna ayay dhaheen. aniguna ma qasbi karo. hibo, waan ogahay inaad u xanaaqsan tahay daahir wixii uu kugu sameeyey darteed
oo uu kaa tegey dhowr maalmood ka hor arooskaagii. hal maalin ka hor arooska? haa, hal maalin ka hor arooska. laakiin waan ku baryaa, haddii aad guursan lahayd, qoyskaaga ayuu ka mid ahaan lahaa maanta. anigaba aabbahay noloshiisa ayaa halis ku jirta oo cisbitaal ayuu ku jiraa. haddii aanan lacagta helin oo uu magafahana soo waco, ma u malaynayo inuu noolaan doono markaan. hibo, waan ku baryaa, fadlan cafi daahir oo naga caawi inaan helno lacagta. aniga iyo reerkeennaba inta ka dhiman nolosheenna abaal ayaan kuu hayn doonnaa. wax lacag ah ma haya xaawakiin, reerkayaguna sidoo kale ma hayaan, mana kala jecla nolosha daahir sheekh rooble wixii uu igu sameeyey awgiis. haddii aad adigu cafisid, iyaguna way cafin doonaan. reerkayagu ma aaminayaan isaga, si aan uga dhaadhiciyana ma aqaan. maxay iila eg tahay inaadan isku dayinba? xaawakiin, waxaan u malaynayaa inaad ku cara furfuranaysid qof aan loogu talagelin. waxa keliya ee aan isku dayayaa waa inaan reerkayga badbaadiyaa oo aan xaaladdan wax ka qabtaa. waan ogahay, reerkayagana lama fahmi karo, umana fududa inay cafiyaan daahir sheekh rooble. waa inaad middaas ila fahantaa. waa yahay, waxaan u malaynayaa inaan ku khasbanahay inaan wax un sameeyo. maxaad ugala jeeddaa taas? nabaday hibo. joofle, malaha waad igu ciyaaraysaa aniga. miyaadan indhahaaga ku arag gallad dhimashadiisa adigana lagu toogan gaaray? yaa, mar aan sidaas u sii dheereen, markii aad isku daydeen burcadbadeednimo, adigoo waxaasoo dhan ayaad dib ugu laabatay miyaa joofle? fadlan kor u qayli si qof kasta oo reer daaqsan ah u maqla inaan burcadbadeednimo aaday. wallaahi kuma fahmaya aniga. maxaad burcadbadeednimo ugu laabatay joofle? fadlan bal wax ii sharax sidii ilmo yar oo aan waxba ka fahansanayn nolosha joofle. soo ma ogid inaan kalluun ugu filan soo damin maalmahan sababa la xidhiira xanibaad ay dawladdu ku soo rogtay kalluumaysatada. weligaaba waad necbayd kalluumaysiga ee middaas marmarsiyo kama dhigan kartid joofle. mar kasta waxaad raadisaa dariiq fudud oo aad taajir ku noqotid waryaa. oo maxaa iga khaldan haddaan riyoodo? ii sheeg joofle, sow aad umaadan doonaynin inaan ilmo kala dhalno? marka riyadaada waa inaad 3 carruura iiga tagtaa si markaad dhimato aan carruurta u koriyo aniga. soo sidaas ma aha riyadaada? yaa, waxaan la imaan lahaa lacag. hataa haddii aan lacag la isiin, waxaan rabay inaan iibsado qoriga la ii siiyey inaan ku howlgalo. $400 ayuu joogaa qorigaas. marka waxaan rabay inaan lacag kuu keeno. waa riyooyin aan waxba ku fadhin. oo aaway qorigii hadda ama lacagtii aad qoriga siisatay joofle? qof ayaa iga xoogay oo qorshahoo dhan iiga ciyaaray. oo yaa qoriga kaa xoogay? iska ilow middaas. ma ilaawayo. waa inaad hadda ii sheegtaa cidda qoriga kaa qaadatay. naftaada bilaash halis umaadan gelin jooflow. yaa qaatay qoriga? aniga laftirkayga ayaa u tegaya oo ka soo qaadaya qoriga. maama ceebla, sidee tahay? sidee tahay maxay tahay? waadna aragtaa sideennii aan nahay. sidee yahay sheekh rooble maanta? wuu fiican yahay sheekh rooble, ee fadlan iska bax wiilyaho, ord iska bax. hadda uunbaan halkaan imide. maama ceebla, maxaa khaldan? halkaan lagaama rabo ee ord iska bax. maxaa khalada oo aan sameeyey? dhibtanna haysatoo dhan adiga ayaa u sabab ah. horta ma og tahay middaas? ma hubtaa maama ceebla? maxaan sameeyey oo sidaan dhan la iigula dhaqmayaa? maxaan sameeyey kulahaa? war jacayl indhala ayaad ku abuurtay gabadhayda. haddii aadan adiga joogi lahayn, xaawakiin waxay ku noqon lahayd moogi. lacagta madax furashadana wuuna siin lahaa. haddii aadan adigu beertayda gubi lahayn, saacan waxaan haysan lahaa lacag badan oo waxaan bixin lahaa lacagta madax furashada. war yaa halkan isaga tag baan ku idhi. waan baxayaa. waxaad si ogaataa inaad eedaynaysid qofkii khaladka galay qof aan ahayn. waa daahir sheekh rooble qofka tahriibay. marka aad middaasi aqbashid, waa nafasi doontaa oo waxaad joojin doontaa eedaynta dadka masaakiinta ah ee idinka idin caawinaya. waayahay, ha ilaawin inaad daawooyinka qaadatid cuntada ka hor. hayadhe haye kalkaaliso maryam, mahadsanid. maryam, sidee tahay? haye ninka la waayey, sidaan kuu soo wacayay waan daalay. haa, waan ka xumahay. taleefanka ayaa iga hadlaysnaa. ma telefoonka ayaa kaa hadlaysnaa mise waalidiintaada ayuu dhib ka yimid? waan gartay. ma iska qiyaasaa waxa aamusnaantaadu ka macno tahay?
waayahay shaqada ayaan ku laabanayaa. maya sug aan wada hadalna marka hore. maxaan ka wada hadlaynaa? soo waalidiintaada go'aan kama gaarin arrinteenna. ma rabaan inaad guursatid gabar beelaha la heebsooco ka soo jeedo. horta maqal fadlan aan wada hadalno. xilligii shaqada ayaa la joogaa. waa inaan bukaannada u adeegaa. waayahay wax dhibaa ma lahan, bannaanka ayaan kugu sugayaa inta shaqadaada aad ka dhammaysanayso, kadib ayaan wada hadlaynaa. xaqiiqdii ma aqaana waxa aan ka wada hadlayno. haddii laguu diiday in aan waalidka la dagaalanno ma aha. bannaanka ayaan kugu sugayaa inta shaqadaada ay ka soo dhammaanayso, aan wada hadlaynaa. waan ku jecelaha Maryam. hadhow ayaan is arkaynaa Cali. waayahay Shamsa, hadhow baan is arkaynaa. macquul ma tahay inaa maanta xilli hore shaqada ka soo bixaysid? maalmihii la soo dhaafay dhan xilli dambe ayaa guriga imaanaysa. miyaad iga cabanaysaa Shamsa? lacag aan reerka oo dhan ku quudiyo ayaan baadigoob ugu jiraa. ma cabanaayo, waxaan u yara baahanahay in carruurta layga caabiyo, waayo way badan yihiin. waxaan weli ka soo kabsanayaa qaliinkii. ma waxaad u malaynaysaa inaan ku raaxaysto inta aan sugayo in macaamiisheedu ay jaadkooda dhammaysanayaan oo ay ka tegayaan goobta? raaxo ma jirto haddaad i aaminaysid. wax hadna maxaa rabtaa? maxaa u weynaysaa? waan baxayaa oo dukaanka ayaan soo furayaa. ma ogtahay miroo ka kaalisan Maryam waxay tiri ninkaaga kala hadal ubad kala korinta, khaasatan qaliinka laygu sameeyey awgiis. Shamso, ma waxaad rabtaa inaan arrintaas ka wada hadalno hadda anigoo shaqada ka daasan? marka goormaan ka wada hadalnaa? xilli dambe ayaad timaadaa oo aad ayaad u dahlan tahay, xilli horena degdeg ayaad u baxdaa. marka goorma maxaan uga hadlaynaa horta arrimahaas? alla ayaa carruurta baxsha, markuuna siiyo ayaan aqbalaynaa. laakiin diintu waxay ogashahay in carruurta la kala koriyo. sidaas darteed ayuu suuratulbaqara ilaahay u yidhi hooyooyinku ha nuujiyeen ilmahooda 2 sano oo kaamil ah. tani waxay u sugnaatay waalidiinta la rabo inay dhammaystaan muddada naasnuujinta. haa, laakiin soo hadda uma naasnuujinaysid carruurta? sow intaasi kuguma filna ubad kala dheeraynta? kalkaalisa Maryam waxay tiri waa inaan u qasadnaa arrintan. hadda ma xamili kara aniga uur kale, weliba anigoo hadda uun khaliin maray. halis ayay ku keeni kartaa naftayda. waayahay, waan sii baxayaa, hadhow baan wada hadlaynaa. joofle ma ii sheegaysaa mise waa maya? iska dhaaf taas aaminoy. haddii aad diiddid inaad ii sheegtid jooflow, waxaad rabtaa inaan intaan taga marfashka jaadka oo buuq kiciyo. waana hubaa in qof un uu ii sheegi doono. qof marfashka jaadka joogo oo arrintan og ma jiro. waxaan kaa codsan lahaa inaad cidna u sheegin. ma waxaad ka xishoonaysaa inaad aadday howlgal burcadbadeednimo yaa? ma sidaas daraaddeed ayaad rabtaa inay cidna ku ogaan? waaba sababta aan u rabay inaanan waxba kuu sheegin adiga. inta cimrigayga ka dhiman waa igu soo hadal qaadi doontaa un. marka ma ii sheegaysaa qofka qaatay qoriga mise waa maya joofle? waa yahay warfaa iyo fidmadoodayaashiisa ayaa iga qaatay. mudanaha burcadbadeedkana wuxuu iga rabaa qorigiisa. haddii aanan keenin wuxuu igu hanjabay inuu ilkaha oo dhan iga daadin doono. laakiin warfaa ayaa haystaa. middaas ma u sheegtay mudanaha? inuu kala jecel yahay ayaad u malaynaysaa. keliya wuxuu rabaa qorigiisa. xaggee u socotaa? qoriga ayaan warfaa ka soo qaadayaa joofle, kadibna mudanaha burcadbadeedka ayaan u geynayaa. lacagteennana waan ka soo qaadayaa anigu. mudanaha burcadbadeedku waxba kuma siin doono, marka taasi iska hilmaam. waa beentaas. buuq intaan kiciyo ayaan lacagta ka soo qaadayaa haddeer waryaa. ma waxaad u malaynaysaa inuu warfaa ku siin doono qoriga? kuma siin doono, waa tuug. haye aan aragna labadeenna midka tuugga ah, aniga iyo asaga. aniga khatar ayaan ahay marka reerkayga afaarihiisa gacanta lala soo galo joofle. soo gal xaawakiin waad igu kadisay. sidee tahay ma oge? fiican, soo fadhiiso. haa, wax yar ayaan fadhiisanayaa. suhayb aaway? guriga ayuu joogaa. waxaan filayaa sida aad u qaab daran tahay isna inuu u duruufaysan yuu u qaab daran yahay. maxaa ma rabtid miyaa inaan runta kuu sheego sida aad u eg tahay? waayo duruuf ayaa kaa muuqata. waa caadi ma oge, wixii maankaaga ku jira waad ii sheegi kartaa. xaawakiin nolol fiican ayaad ku jirtay markii aad aniga ila noolayd. cunto fiicanood cuntaad haysatay, barafuun aad isku buufiso, markaad halkaa marayso way kaa muuqatay. haa, abaal ayaan kaaga hayaa. hagaag. rajada iyo wanaagga aan kaa aaminsanahay ayaan halkan kuugu imid maanta ma oge.
haye maxaad rabtaa maanta oo daran aad iyo leedahay waxaan kaa codsanayaa inaad reerkeenna kaalmaysid mooge noo naxariiso fadlan $15,000 ee madax furashada daahir loogu haysto nasiib oo maxaan sidaa u samaynaya oo igu kallifaya waxaan ballankaaga qaadayaa inaan lacagtaas wada bixiyo ganacsigayga kalluumaysiga si fiican ayuu u socdaa oo waxaan ballankaaga qaadayaa inaan lacagtaas iska wada bixiyo maxaan kuu aaminayaa xaawakiin si fiican ayaan kuu dhaqaalayn jiray balday sida aad iigu abaalgudday adugu cafis ayaan kaa dalbanayaa mooge haddaan kuu gafa iyo cafi waan ku baryaa i caawi ma hubo sida aan kuu caawin karo haddii aadan dartay u samayn karin mooge wiilkaaga suhayb dartiis u yeel awowgiis oo dhiiggiisa ah ayaa cisbitaal ku jira oo xaaladdiisa ay halis ku jirtaa haddii aynan helin lacagtaas madax furashada ah ma u malaynayo inuu aabbahay badbaadi doono nolosha iyo geeriduba eebba gacantii ayay ku jiraan waan ku baryaa mooge lacagta waan ku siin doonaa ka waran haddii aan kuu sheego si aan lacagtaa kugu siin karo oo aan shilna dib dambe lagaaga rabin haye arrin fudud ayaan kuu soo bandhigayaa haddii aad kaalmadayda rabtid waad og tahay waxa lagaa rabo in aad samaysid horta may fahantay waan ku fahmayaa mooge hagaag waxa aad go'aansatid ii soo sheeg shir ayaan u socdaaye ma ku sii qaadaa meesheese aad rabtaa waan sii lugaynayaa mahadsanid waryaa isii qoriga aad ka soo qaadatay joofle haddaad rabtid inaan baxo aniga joofle adiga darta ayuu dhib ugu jiraa waxaa nasiib darro ahayd in joofle uu yimid meel aan looga baahnayn xilli weliba aan loo baahnayn ha is adkeeyo warkaas ma raba aniga qoriga isii warfaa marka fulayga joofle ah intuu dhuuntay ayuu xaaskiisa soo dirayaa miya halkaan uma imaan aniga inaan khudbad dhegaysto qoriga isii waxaan u geynayaa burcadbadeedkii kadibna waxaan ka soo qaadayaa lacagtii joofle shilin indha saari maysid ninkaas toddobaadyo ka hor ayaan ka daba wareegayey sidaa daraaddeed ayaan qoriga uga qaatay joofle ha raadsado qori kale oo uu xado marka muxuu burcadbadeedka lacagta ugu dheggan yahay yaa oo maxaa dadkiina waalwaalan ugu shaqaynaysaa nin aanba lacag idin siinayn ha ma ninkaas weligaa horta ma la kulantay qof suuqgeeye ah wuxuu u iibiyaa sidii inaan waxba ka dambayn oo kale marka waad jeclaanaysaa shaqo ayaad weliba u qabanaysaa kadibna waxba ma helaysid oo adoo gacmo maran ayaad iska tegaysaa waa waali cas weliba hadda ayaan anigu ogaaday in mudanaha burcadbadeedku uu uun keligiis ka faa'iido howlgallada inteenna kale nolosheenna ayaan halis gelinnaa sidii doqommo oo kale way iska caddahay hadda fadlan isii qoriga haddaad rabto inaan halkan ka tago waa wareey qorigaas mar hore ayaan iibiyey marka isii lacagtii joofle fadlan warfaa carruur ayaa iga baahan aniga aniguba kula mid ayaan ahay oo reer ayaan leeyahay qof kastana sidii uu ku noolaan karo ayuu sameeyaa ee danayso warfaa hadda ma kaa dhabbaa qorina isiin maysid lacagna isiin maysid miya waxaan qaatay lacagta aan mudanaha burcadbadeedda ku leeyahay barkeed uun haddii aan arko qof kale oo qori haysta waan ka qaadan doonaa ilaa inta aan ka helayo lacagta $1,000 ah ee uu horay iigu ballanqaaday ku darsoo jooflana u sheeg inuu mudanaha burcadbadeedka iska hilmaamo oo uu nolol cusub raadsado wax wanaag ah oo weliba uu ka faa'iidi doono ma laha ninkaas sida iska cad wax faa'iido ah oo ka soo baxaya ma laha sheekadeenna waan baxay anigu kalkaalisa maryam waa inaad midho la hadashaa ma u malaynayo inuu dab iiga qaadanayo fariinta ubadkala korinta horta ma isku dayda in aad la hadashid hal mar xitaa ma ahan ee dhowr jeer ayaan isku dayey inaan kala hadlo laakiin mar kasta oo aan ku soo hadalqaadlo wuu cararaa malaha waxaad u baahan tahay in aad raadisid wakhti munaasab ah oo aad la hadashid kamarwe ahaan waxaa lagaa rabaa in aad caqli isticmaashid oo aad taqaanid xilliga munaasabka u ah ninkaaga ninkaygu wax wakhti oo munaasab ah ma lahan maryamey waa laba mid uun inuu shaqada xilli dambe ka yimaado iyo inuu kala hayo oo uu shaqada ka daahsan yahay keliya muxuu ku dhahay marka aad u sheegtay in aad rabtid in aad ubadka kala korisid wuxuu dhahay carruurta ilaahay ayaa bixiya markuuna siiyana waan aqbalaynaa haa waan ogahay waxa aad ka walwalaysid haddii aanan ka taxadirinna uur ayaan qaadayaa soo maaha haa shamsa uur xilligaan ma qaadi kartid maadaama oo aad qalliin martay adiga keliya halis kuguma aha ee xataa ilmaha ayaa khatar geli kara marka waa yahay waan ku baryayaaye kalkaalisa maryamey la hadal adiga midho la hadal ma raba in caqabad la ii arko maanta ama beri midkood isku day in aad la hadashid
haddii uu kaa diido aniga ayaa idinsoo dhexgeli doono haye dheh haye waa yahay bal waan isku dayayaa hadhow baan wada hadlaynaa haa waatan xaawakiin waxbaan rabay inaan kala hadlo nabaday shamsa mahadsanid kalkaalisa maryam nabadgelyo xaawakiinay haa maryan see tahay fiiri runtii ma rabin in heerkan laisla soo gaaro laakiin cadaadis ayaa i saaran maxaa qaldan saaxiib bal wax ii sheeg intii karaankayga ah waan isku dayay xaawakiin laakiin in aabbaha uu isbitaalkan ku sii jiro iyadoo wax lacaga la bixinin dhib ayay ii keeni kartaa xisaabiyaha wuxuu leeyahay waa in lacag horumaris ah la bixiyaa ama shiiqa isbitaalka laga saaraa alla rabbiyow maxaan samaynaa waan dadaalay anigu intaas ka badanna sharciga ma baalmari karo waa yahay waan ku qasbanahay inaan wax un sameeyo waan ka xumahay qaali way hagaagaysaa insha allah ha walwelin saaxiib wax badan ayaad noo qabatay waa inaan wax sameeyaa hadda dhowr saacadood bal isii waa yahay allaha fududeeya xaawakiin waad mahadsan tahay maryan hooyo waan xirxiranay xaggee u soconaa samir yeelo waad arki doontaa halkaan u soconnee waan ku baryayaa noo sheeg meeshaan u socono hooyo carruurtaan dulqaad ma lahan miyaa horta war dhibkayga dhaafayaa bidix u leexo maya midkan waan aqaanaa hooyo ma waxaad u socotaa inaad la noolaatid aabba mooge hooyo ma halkaas ayaan u soconaa aabba mooge hanad warka iska dhaaf soo soco ii sheeg hooyo ma halkaas ayaan u soconnaa hanad waan ku garaaci doonaa ma soo soconaysaa mise ma soo soconaysid maya minii raacaya hooyo waxaan u laabanayaa guriga awoowe madaxaday ka jooji hanad soo soco adiga ayaan kula hadlayaa aniga bahalkaas lama noolaanaayay nabadey hanad halkaan ku soo laaba hanad adiguna ma inaad laabataad rabtaa hani maya meesha aad aadid ayaan aadayaa marnaba kuma cidlayn doono hooyo waa yahay balina keen in aad i sugtid lama rabin cali waan ku qasbanaa maryan waayo waddo kale ma haysanin inaan wada hadalna ayaan rabaa maxaan ka wada hadalnaa cali reerkiinnu weligood uma oggolaan doonaan gabar reeraha la heebsooco ka soo jeedo wax macnaha ma lahan waxaas qaaliisdeji anigu wax weliba waan u samayn doonaa sidii aan isku heli lahayn keliya waxaad ogaataa inaan ku jecelahay in aad durbo iska kay hilmaamto ayaa innagoo dhan inoo fiican oo adigu ma ilaawi kartaa markaa maxaa khiyaar ah oo aan haystaa cali adigu ma u malaynaysaa in xidhiirkan uu hana qaadi doono xabiibti rajada ilaahay lagama quusto isdeji oo waannu gaaraynaa guusheena innagoo israbna ayuu qabiilku isku keendiiday uma malaynaayo in ay wax kale go'aansan doonaan reerkiinna anigu go'aankaygu waxa uu yahay inaan wax weliba u samay sidii aan isku heli lahayn xabiibti aniga mar weliba waxaan kaa codsanayaa inaad jacaylkeenna u dhabar adeegno wax weliba aniga ayaa hagaajin doona waana u dagaalamayaa sidii aan ani adiga isku heli lahayn wax walba oo dhacana aniga ayaa garabkaaga taagan ha ka welwelayn xabiibti wahwaah taasi waxay ahayd xalqad cajiib ah waxaan filaynaa inay aad kuu soo jiidatay la soco oo dhegayso si aad u ogaatid in jacaylka duuliye cali iyo kalkaalisa maryam uu guulaysan doono iyo in kale hooyo shamsa waxay ku jirtaa xaalad labalabayn ku dhisan middan ayay salka ku haysaa su'aasheenna maanta shamsa waxay isku daysaa inay arrinta ubad kala korinta kala hadasho ninkeeda mire xiise uma qabo arrinkaasi ma u malaynaysaa in ragga ay tala ku leeyihiin arrinta ubad kala korinta ma u malaynaysaa in ragga ay tala ku leeyihiin arrinta ubad kala korinta waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikirkaaga fadlan fariin qoraal gaaba noogu soo dir nambarka 354 waa nambarka 354 adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogtid waa inoo iyo toddobaadka soo socda iyo isla xilligani nabadgelyo